xeerka madaxweyne ee lambarka eber hal 2 February 2019 kuna saabsan magacaawista wasiire ee xukuumadda dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qodobka 48aad farqadiisa 2 iyo qodobka 54aad farqadiisa 1 markuu la tashaday baarlamaanka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya markuu tixgeliyay soo jeedinta baarlamaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku saabsan baahida loo qabo wasiiro aqoon iyo karti ku salaysan markuu garowsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka Koonfur Galbeed ka sugayeen xukuumadda markuu xeeriyay magacaabidda qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. wasiirada lambar 1 Axmed Madoowe Nuunow wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga. Axmed Maxamed Xuseen wasaaradda maaliyadda. Maxamed Abuukar Cabdi wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose. Isaaq Cali Subag wasaaradda amniga gudaha. Mustaf Cali Iidow wasaaradda beeraha iyo waraabka. Faysal Cabdullaahi Cali wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq wasaaradda waxbarashada. Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. Axmed Sheekh Maxamed Loox mashruuc loo yaqaano wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska. Maxamed Cali Xasan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. xeerkan waxa uu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya uuna saxiixay. waa mahadsantihiin.